halkaad nagala socotaan oo YouTube channelka Daawana Kaatame ku soo dhawaada qaybtii koowaad sheekada xiisaha kalgacalka badan Manafai qaybteedii koowaad. Haddaba sheekadani waa sheeko taxane inoo ahaan doonta. Fadlan hanaga ilaawin inaad noo subscribe gareyso isla markaana daabato sheekada waxaan idin bilaabeynaa sheekada Manafai iyadoo qofna salaamin hareeraha eegin bay qolkeedii haleel ugu gudubtay sariirta isku halgaaday buugagtii ay sidatayna koomadiinka dushiisii ay naxariis la'aan ku turtay qaar baa dhulka ku daatay weligood ha daataan yaa u jixinjixaayo yaa aruurinayo addimadeedii bay aruurin kari la'dahay waa taasaa labadeedii lugood mid sariirta ka dul xoortay iyadoo kobteedii wadatay tiigga oo iskeedii ugu dhacdayna waxay ka lulataa sariirta qarkeedii bowdaha waxaa ceega adag ku haya surwaalka kaakiga ah ee dugsiga weligiisba ha ku hayo yaa ka fujinaya yaaba ka xanuunsanaya haddaad isha kor ula sii raacdo waxaad arkaysaa shaati cad oo gacmo gaab ah oo ay hoostu ka soo riixayaan laba naasood oo dhawaan kobcay waxaa la moodaa inay ka caabanayaan shaatiga tirsi la'aanta loogu dhejiyey weligoodba ha ka cawdeen yaa dulman ma iyaga mise gulisaha la moodo inay sii go'ayaan kii doonaba ha dulmanaado yaa isugu geli lahaa wuxuu moodi lahaa ruux suuxsan ama mar hore gamcay waa runo indhuhu way dinsatay laakiinse hurdo warkeedii ma jirto indhaheeda baryahan hurdo soomay booqan intay neef culus xoog weyn u soo jiiday bay xoogaa ka sii weyn ku soo celisay sidii iyadoo doonaysa inay ku soo xaqdo dhibaatooyinka maskaxeed la siiyey waxayna la ahayd dhibaatooyinka ifka lagu uumay idil ahaanteed inay iyadu dul saaran yihiin qof kasta dhibaatadiisii la culus isagaana isla sii jiid leh noloshaaba sidaa intay hooyo ku soo boodo oo dhexda isaga duubto labada dhabar kama dhunkan sidii caadadu ahaan jirtay markay dugsiga ka timaado maanadeedii ma ahan habartii oo qalbi jabsan xaaladeeduna qadarinaysa ayaa intay ku soo dhawaatay codkiina soo dibcisay qoraahdii hore u raacisay joogsahee gabartay dharka iska beddel muggo aqadaysidee qadadii waa kaa qaboweysaaye qadqadadiina ma rabiye ammaan aan niga helo ayay si kulul ula soo bootay markii hooyadeed hadalkii ku celcelisay markay tiri kadib bay la soo xumaatay oraahdaas aan asluubta lahayn ee iskeeda ugu soo fakatay kamase toobad keenin ay cadday intay cabaar iyadoo ama kaag afka sacabka ku haysa ku dhaygagtay ayay dib ugu soo laabatay iyadoo cagaha jiidaysa sidii abaanduule goob dagaal ku soo guuldareystay waa adduun cimrigaaga raagay geel la laaya ayuu ku tusaa ma aha Manafai baa qofta sidaa miyaa u dambaysay aaway baarnimadeedii iyo dheg nugeelkeedii aaway qosolkii iyo qalbiga furnaantii aaway firfircoonidii iyo sheekadii macaanayd aaway xishoodkii iyo xushmaddii iyo ilaalintii aaway dabeecaddii dhan walba dahabka ka ahayd ay xamarweyne dhan caanka ugu noqotay habartii gabari ka qaloocataa ku halqabsan jirtay haddii aan nasiib leeyahay Manafai camalaan dhali lahaa ay cadday wax ku cusub ma ahayn gabadheedii qadadii ay maalintaasi ku diiday iyo xushmad daradii ay ugu jawaabtay horay buu yaabkii ugu xumaa
la soco qaybta labaad ee sheekada xiisaha iyo kalgacalka badan Manafai yaan lagaaga sheekeen oo noqo dhegeystaha ugu horeeya ee dhegeysta sheekada Manafai.